Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabi waxaad kusoo dhawaataan janaalkeennii iyo weliba sheeko kaloo cusub. Sheekadan waxay ku saabsan tahay famil faqiir ahaa ayaa waxa ay dhaleen wiil yar oo aad u qurux badan. Waxa ay sugayeen inay ciyaal dhalaan muddo aad u dheer, ugu dambeyntiina waa ay dhaleen. Magaalada waxaa ka tali jiray boqor kibir badan, weliba ahaa mid xaasid ah. Maalin isagoo wasiirkiisa la socda ayaa wuxuu ku yidhi, maxaa ku cusub magaalada, ila wadaag. Wasiirkii ayaa ku yidhi, wasiirow, cid magaalada cunug ugu dhashay oo weliba wiil qurux badan dhaleen ayaa dadka waxay ku xantaan inuu guursan doono gabadhaada. Kadibna boqorkii waa u xanaaqay, cid faqiir ah wiilkooda sidee ayuu gabadheeda ku guursan karaa ayuu yidhi. Ma dhacayso, waa in arrinkaas aan ka hortagaa. Kadibna waa uu soo baxay isagoo soo aaday xaafadii uu deganaa wiilkii yaraa ee hadda la dhalay. Kadibna waalidkiis ayuu u yimid isagoo iska soo dhigay weliba inuu yahay ganacsade. Waxa uuna yidhi, waxaan u baahanahay wiilkiina, waxaan rabaa inaan korsado oo aan aniga aabbo u noqdo, idinkana idin siiyo xoogaa yaroo lacag ah. Kadibna waxay ku yiraahdeen, maya, wiilkeena ma dhiibi karno, ma ahayn alaab. Wuxuu ku yidhi, lacagtan idin badinayaa, jawaan dahab ah ayaan idin siinayaa. Aniga waxaan ahay nin ganacsada ah, lacag badan ayaan haystaa. Wiilkiina anaa korinayo, si qurux badan anaa u korinayo, aabba fiican u noqonaya, nolol raaxo ayuu ku noolaan doonaa. Idinka faqiir ayaa tihiin, dhibaato ayaa ku korinaysaan, laakiin ani si qurux badan ayaa u korinaya. Ugu dambeyn waa ay ka ogolaadeen, waxayna yiraahdeen, wiilkeena inoo xafid oo inoo haay. Kadibna cunugii yar ayuu sidaas uga soo qaatay. Muxuu ku samayn doonaa ay idinla tahay? Cunugii waa uu soo waday, sanduuq ayuuna ku dhex riday, welibana ciidankiisa ayuu amray inay webiga raacsiiyaan si uu u dhinto. Wiilka inuu dhinto ma aysan qornayne, waxa uu dul sabeynayay isagoo sanduuqiisa ku jira webiga dushiisa. Weliba wax dhibaato ah ma aysan soo gaarin. Siduu u socday weliba maalmo fara badan ayaa ugu dambeyn waxa uu soo gaaray cid faqiir ahayd oo weliba ubad la'aan haysay beertooda. Way arkeen, markii ay fureenba waxa ay dareemeen in wiil hadiyad ayaga looga dhigay inuu yahay. Kadibna waa ay soo baxsadeen, waxayna bilaabeen inay u koriyaan sida wiilkooda oo kale, oo ay uga naxaan sida cunug ay dhaleen. Kadib wiilkii waa uu weynaaday, waa kan hadda la shaqaynaya familka, waxayna u bixiyeen Henry. Maalin ayaa waxaa soo maray xaafadaas boqorkii iyo wasiirkiisa, waxayna ka koranayeen roob aad u weynaa. Albaabka ay u soo gargaraaceen ciddii soo korsatay wiilka. Markaas kadib waa uu ka furay ninkii guriga lahaa, soo gal ayuuna ku yiri isagoo aqoonsaday inay yihiin boqorkii iyo wasiirkiisa. Kadibna waa uu soo dhaweeyay si fiican, shaax aad u macaan badan ayaa waxa uu keenay wiilkii Henry ahaa. Waxa uuna yiri, wiil fiican ayaad dhasheen, weliba aad u akhlaaq badan. Ninkii ayaa yiri, boqorow, wiilkan waan soo korsanay, weliba 20 sano ka hor ayaan waxaa ka helnay sanduuq uu webiga soo tafay. Boqorkii waa uu isku naxay, kadibna waxa uu ogaaday wiilkan inuu yahay wiilkii uu rabay inuu dilo 20 sano ka hor. Haddase uu arkay isagoo nool, waxa uuna rabaa inuu mar labaad dilo. Qorshe kale ayuu usoo fikiray. Waxa ku yiri, wiil yahow, waxaan iska soo iloobay arrin inaan usoo sheego xaaskayga oo qasriga joogta, oo warqadan iigu geey, welibana waxaa ku tiraahdaa horteyda ha lagu aqriyo, adigoo meesha taagan ha la aqriyo. Wiilkii Henry ah waxa uu ku faraxsan yahay boqorka hawsha uu dirsanayo. Kadibna waxa uu ku yiri, boqorow, warkaaga lama diidi karo, warqadana waan qaadayaa. Waxa uu yiri, ii dhiib, haddeertan ayaa baxaya. Kadibna waxa uu soo qaatay faraskiisa isagoo soo aaday qasriga boqorka, balse ma uusan gaarin oo gabalkii ayaa ku dhacay. Habeen ayayna ku noqotay, waddadiina waa uu ka lumay, waana uu aqoon waayey jihada loo aado maadaama ay habeen tahay. Kadibna waxa uu raadsaday meel uu ku gambado oo uga gambado xayawaanadan iyo dhaxanta dhexaysa. Waxa uuna arkay guri keenta ku dhex yaala oo aad u qurux badan, guri kalena hareerihiisa uusan alin. Kadibna waxa uu soo aaday gurigii isagoo isla aad ka heshid gabaad iyo waxaad cunto. Kadibna albaabkii ayuu soo istaagay, waana uu gargaraacay. Albaabkii waxaa ka furtay islaanta ah, waxayna ku tiri, soo fariiso, waxaad cunto waan ku sii karaa, ee xaggeed u socotaa? Wuxuu ku yiri, qasriga boqorka ayaan u socdaa, waxaan u wadaa warqad oo ii soo dhiibay boqorka. Kadibna waxay ku tiri, wiilkaygiyow, waxaan kuu sheegayaa waxaad cunto inaan ku siinayo, balse meelaha seexato waa inaad raadsataa. Guriga waxaa iska leh wiilkayga oo ah mid tuug ah, weliba qofka uu arko ma dhaafee waa uu dilaa. Markay arrinkaas u sheegtay ayadoo weliba u naxaysa, ayuu ku yiri, maya, ma bixi karo aniga, meelaan seexdo inaan helo waa qasab. Adiga ayaan kuu baqaya, ayay ku tiri, wiilkayga waa manaxe. Kadibna wuxuu ku yiri, dhib ma lahan, ilaahay ayaan qabaa, aniga wax dhibaato ahna ma wato, waa inaan iska seexdaa. Kadibna waxay seexisay fadhigii oo sariir u ahaa ninkii tuuga ahaa. Habeenkii saqda dhexe markii la gaaray ayaa waxaa yimid ninkii tuuga ahaa, weliba waxa uu arkay ninkii oo sariirtiisa hurda.
waa uu xanaaqay. Kadibna waxuu ku yidhi, hooyo waa kuma qofkan sariirteeda jiifa? Waxay ku tiri, waa wiil miskiin ah oo weliba aad u daalan, waxa uuna fariin u wadaa boqoradda oo waxa uu ka keenay boqorka. Kadibna waxa uu fiiriyaa wiilkii, waxa uuna yidhi, waa inaan fiiriyaa fariinta uu wado, maxaa loogu soo qoray meesha. Kadibna boorsadiisa ayuu wuxuu kasoo bixiyey warqaddii. Markuu akhriyey waa uu ka naxay wiilkan miskiinka ah, oo warqadda waxaaba ku qoran, wiilkan haddii ku yimaado xabsi hala geliyo, gabadheeda Saara iyo isagana yaysan is arkin. Kadibna waxa uu bilaabay inuu bedelo warqaddii oo ku qoro, gabadheeda Saara hala siiyo wiilkan warqaddan wata, waa wiil wanaagsan. Kadibna waxa uu ugu riday boorsadii. Ninkii tuuga ahaan waa uu iska tagay habeenkaas. Subaxdii ayaa la gaaray, qoraxdiina waa ay soo baxday. Harryna waa uu ka soo kacay. Kadibna waxa uu soo macsalaameeyey haweeneydii da'da ahayd ee guriga iska lahayd, isagoo u soo jeestay dhanka iyo qasriga. Ugu dambeyn waxa uu yimid qasrigii boqorka. Isagoo meelaha fiirfiirinaya ayaa waxa uu arkay gabar aad u qurux badan. Waaba gabadha uu dhalay boqorka ee Zara. Quruxdeeda ayuu u bogay, waana uu ka helay. Ayadana sidoo kale waa ay aragtay wiilkan dhalinyarada ah ee magaalada ku cusub, wejigiisuna aad ku iftiimayo. Sidoo kale ayadiina waa ay ka heshay. Ayadoo aanan la hadlin ayay kor ilaa iyo hoos ka fiirisay, quruxdiisana waa ay cajabisay. Kadibna waxay tiri, wiil yahow xagee baad ka timid? Aad nood u qurux badan tahay. Waxa uu ku yidhi, aniga waxaan ka imid boqorka oo xaafadeeda igu yimid, warqadna waa ii soo dhiibay, wuxuuna igu yidhi boqoradayda u geeyey, sidaas ayaanu ku imaaday qasriga. Waxay ku tiri, aniga gabadhiisa ayaan ahay, magacayguna waa Zara, inakeen soo bax aan ku geeyo hooyaday ee ah boqoradda. Sidaas ayay ku soo waday, waxayna u keentay hooyadeed oo ay ku tiri, wiilkan ayaa aabbo wax kaaga wada. Isagiina waxaa ku yidhi, warqaddan iga guddooma, waxaa ii soo dhiibay boqorka. Kadibna waa ay ka qabatay, warqaddii ayay akhrisay, waxayna aragtay calaamad uu soo dhiibay boqorka. Kadibna waxay xaqiiqsadeen inuu yahay warkan run. Waxay ku tiri, wiilkan waxaa lasoo amray in adiga lagu siiyo oo xaaskaysa aad noqotid. Kadibna waa la isku guuriyey labadooda, waxayna noqdeen nin iyo xaaskiisa. Isagiina familkii boqorka ayuu ku soo biiray, balse warqaddii loo soo qoray maahine, warqad kale oo ka duwan ayuu kula soo biiray. Waxaa yimid maalin kadib arooskooda boqorkii, weliba waa uu ka xanaaqay arooskan. Waxa uuna yidhi, warqaddayda ma arkina miya? Sidee aad ku samayn kartaan waxaanan aniga idin amrin? Waa khalad man inaad ikhilaaftaan aniga. Kadibna waxay yidhahdeen, alla boqoro, warqadda sidaa ayaa ku qorneed, maxaa kaa khaldan? Adiga ayaaba soo qoray, arag. Warqaddii ayuu arkay. Kadibna waxa uu ogaaday inuusan isaga soo qorin ee la bedelay warqaddii. Wuxuu yidhi, warqaddan aniga ma aanan qorin, waa la bedelay. Wiilkii ayaa yidhi, maya, aniga warqadda maba furin xitaa, mana arkin wax ku qornaa, sidee u bedeli karaa? Kadibna waxa uu sheegay boqorkii inuusan isaga sidaas uusan samaynin, oo uu yahay qof daacad ah, weligiisna aanan qofna khiyaanin. Gabadhiisii ayaa tiri, aabbow, wiilkan waa wiil daacad ah, ee adiga waxaan ku weydiinaa warqadda maxaa ku soo qortay? Boqorka indhaha ayuu jeediyey, mana rabo inuu sheego inuu yiraahdo wiilkan in la dilo ayaan rabay, dil ayaan u soo qoray. Mana rabo inuu yiraahdo gabadhayda uma rabo wiilkan inuu guursado. Labadaba inuu sheego ma rabo, balse waxa uu gaaray go'aan kale. Waxa uu yidhi, wiil yahow, haddii aad rabtid gabadhayda inaad sii qabto oo aad ninkeeda sii ahaato, waa inaad ii keentaa 3 tin oo dahabi ah oo aad ka soo goysay ninka ugu weyn magaaladan. Kadibna gabadhiisa ayaa ku tiri, aabbo, wiilka wuu dhimanayaa, ninkaas dadka ayuu cunaa, ma naxo. Habartii ayaa idin sidoo kale tiri, haa, wiilka ha naga dilin, waa wiil wanaagsan. Boqorkii ayaa xanaaqay, waxuuna ku yidhi, waryaada amarkayga hala qaato, cidna kama soo horjeesan karto. Wiilkii Harry ayaa yidhi, boqor, amarkaaga waan qaatay, waana keenayaa, xaaskaygana sidaan ugu soo laaban lahaa aniga ayaa ka talinayo. Kadibna waa uu soo baxay isagoo soo macsalaameeyey xaaskiisa. Waxa uu soo gaaray albaabka koowaad ee qasriga looga baxo. Albaabka waxaa taagnaa askari oo istaajiyey, kuna yidhi, yaa tahay, xagees u socotaa, ii sheeg. Waxa uu yidhi, aniga waxaan ahay wiilka hadda dhow guursaday gabadha uu dhalay boqorka, magacayguna waa Harry, waxaan u socdaa alaab uu boqorka ii diray. Waxa uu ku yidhi, su'aal ayaan ku weydiinayaa, haddii aad iga jawaabto waan ku fasaxayaa. Wiilkii ayaa yidhi, ii weydii. Kadibna waxa uu ku yidhi, magaaladan waxay lahaa jirtay ceel weyn, weliba ceelkaas waxaa ka soo bixi jiray cabitaano kala duwan oo aad u macaan badan, balse maalmahan dambe way joogsadeen, wax cabitaan ahna lagama helo. Waxa uu ku yidhi, jawaabteeda waxaan ku siinayaa markii aan soo laabto ee i fasax. Waa la fasaxay, sidaas ayuuna uga gudbay albaabkii koowaad. Haddana waxa uu soo gaaray albaabkii labaad. Sidoo kale waxaa taagan askari
oo ku yiri istaag, xageed u socotaa, yaadna tahay, ii sheeg warbixintaas markaad ii dhiibtid kadib ayaan ku fasaxayaa. Wiilka ayaa yiri aniga waxaan ahay ninka qaba gabadha uu dhalay boqorka, magaceeduna waa Harry, waxaan u socdaa ninka weyn ee timaha dahabiga leh inaan timo kasoo gooyo oo boqorkan u keeno. Waxaa ku yiri waxaan ku weydiinayaa su'aal, markaad iga jawaabto ayaan ku fasaxayaa. Kadibna ii weydii ayuu ku yiri. Wuxuu ku yiri magaaladan waxay lahayd geed tufaax ka baxo, weliba tufaax dahab ah oo mar walba iska soo baxo, maalin walbana dadka ay ka dhargi jireen, balse hadda wax tufaax ah geedka ma soo saaro, sababta ma ii sheegi kartaa? Kadib wiilkii Harry ayaa ku yiri jawaabtaada waxaan ku siinayaa markii aan kasoo laabto shaqadu boqorka ii diray ee fasax. Sidaas ayaa lagu fasaxay. Waxa uu yimid webiga, waxa uuna rabaa inuu dhanka kale uga gudbo. Waxa uuna wacday nin doon wata. Ninkii ayaa ku yiri yaa tahay, xagees u socotaa? Kadibna waxa uu yiri aniga waxaan ahay ninka hadda guursaday boqorka gabadhiisa, waxaana u socdaa meel uu boqorka ii diray. Kadibna waxa uu ku yiri su'aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo, ma iiga jawaabi kartaa? Waxa uu yiri haa, i weydii su'aashaada. Kadib ninkii ayaa yiri aniga doontan waxaa wadaa muddo aad u dheer, maalin walban dadka ayaan sidan u gudbiyaa, balse ma aanan helin ilaa iyo hadda qof iga bedela, ee ii sheeg sababta. Wiilkii ayaa yiri sababta aniga ayaa kuu sheegaya, ee hadda i fasax, markii aan soo noqdo ayaad iga helaysaa. Sidaas ayaa lagu soo fasaxay isagoo soo gaaray dhinaca kale ee webiga. Kadibna waxa uu yimid gurigii uu deganaa ninkii weynaa. Albaabka ayuu gargaraacay, waxaana ka furay naag duq ah oo weliba zaa'id duq ah. Kadibna waxay ku tiri yaa tahay, xagees u socotaa? Wuxuu ku yiri aniga waxaan ahay gabadha uu dhalay boqorka, ninka hadda dhow guursaday, waxaana u baahnaa wiilka timaha dahabiga leh ee aadka u weyn inaan timihiisa 3 xabo aan kasoo gooyo, boqorka ayaan ii soo diray. Kadibna waxay ku tiri islaantii gudaha u soo gal, wiilkaas timihiisa si lagu soo gooyo ma fududee, waan arki doonaa, kaalay aan horta hore ku marti sooro, marti ayaad ii tahay. Kadibna waxay soo gelisay gudaha ayadoo u keentay raashin aad u macaan badan oo kala duwan. Kadibna waxay ka dhigtay quraanjo yar oo waxay ku tiri adiga aamusnaa, wax dhaqdhaqaaqan ha sameynin. Jaabka ayayna ku ridatay. Kadibna waxaa yimid habeenkii markii ay noqotay wiilkeeda, waa uu casheeyey, waxa uuna aaday sariirtiisa isagoo sidaas ku hurday. Mar alaala markii uu hurday waxaa u timid islaantii da'da ahayd oo jaabka ku wadata quraanjadii. Kadibna wiilkeedii ayuu hubisay inuu hurdaayo iyo in kale. Waxay kasoo goysay hal tin, hurdadii ayuu darbadiiba ka kacay. Kadibna wuxuu ku yiri hooyo, timaha way xanuunayaan, maxaa sidaan aad ii yeelaysaa? Kadibna waxay ku tiri hooyo, wiilkaygii waa riyooday, riyo xun ayaana ku riyooday, waxaana rabaa inaan kula wadaago wiilkaygiiyow. Wiilkii ayaa ku yiri hooyo ii sheeg riyada maxay tahay, aniga xitaa waan riyoode. Waxay ku tiri waxaan ku riyooday ceel, weliba ceelkaasoo dadka dhan ay ka cabi jireen cabitaan noocyadiisa kala duwan, waxaana la sheegaa ceelkaas inuu guray oo biyihii macaana ay ka dhammaadeen. Kadibna waxuu ku yiri ceelka hoostiisa waxaa fadhiya rake, weliba isha ceelka cabitaanka uu kasoo baxayay ayuu ku daboolan yahay ee laga qaado. Kadibna waxay mar labaad hubisay inuu hurday iyo in kale, waxayna kasoo goysay tin kale ayadoo weliba iska jeekaraysay si fiican inuu hurday in kale. Tintii markii kasoo goysay waa uu soo booday, hurdadii ayuuna ka kacay. hooyo, timaha way xanuunayaan, soo kuuma sheegin ayuu ku dhahay. Kadibna waxay ku tiri haa wiilkaygii, waan ogahay timaha inay ku xanuunayaan, waa riyooda haddana, maxaa ku riyootay? Kadibna waxay tiri waxaa ku riyooday geed tufaax, weliba tufaax dahab ah dhali jiray, oo tufaaxaas la waayay maalmo badan, waxa sababay ma ii sheegi kartaa wiilkaygiiyow? Kadibna ninkii ayaa yiri hooyo, tufaaxa waxaa sidaa u keenay oo laga yaaba inuu dooli hoos ku jiro oo xididka geedka uu cunayo dooliga laga bixiyo. Kadibna waxay tiri okay, waa macquul ayadane. Haddana mar saddexaad ayay jeekaraysay inuu hurdo iyo in kale. Kadibna waxay kasoo goysay tin kale, weliba aad u xanuun badan. Hurdadii ayuu kasoo kacay isagoo aad u caraysan, tookadan waa u qayliyey. Kadibna waxa uu yiri hooyo, maxaa ku riyootay, haddana ii sheeg. Waxay ku tiri waxaa ku riyooday nin doon wada, doontaas waxa uu wadayay muddo aad u dheer, waxa uuna la'san yahay qof uu ku bedelo doonta. Ayadana waxaan kaa rabaa inaa ii fasirtid, weliba si qurux badan aad igu kala dhigtid. Riyooyinka hore waad ii fasirtay, runta ayayna ahaayeen. Kadibna waxa uu ku jawaabay wiilkii weynaa, hooyo, riyadanna waxaan kugu fasirayaa ninkan in qof uu ku bedelo doonta, waxa uu samayn karaa qofka uu rabo inuu ku bedelo ayuu wuxuu u dhiibayaa badeelada ama usha uu doonta ku wado, qofkaas ayuu gacanta u gelinayaa. Kadibna doonta ayuu sidaas uga boodayaa.
waxay ku tiri waa mahadsantahay wiilkaygii, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aad iigu fasirtay riyadii. Kadibna waa ay kasoo tagtay. Subaxii markii la gaarina isagii waa uu iska baxay. Kadibna waxay ninkii quraanjada ay ka dhigtay ku soo celisay sidiisii. Waxay ku tiri timahan waa kaaga soo qaaday, waa inaa u geysaa boqorka. Riyooyinka kuu sheegayane waad aragtay, xalay ayaad heshay jawaabahooda soo maahin. Waxuu ku yiri ma iloobi karo riyadaas, waan xasuustaa, fasiraadii oo dhanna waad isiisay, waad ku mahadsantahay duqii waa yeeshe. Kadibna uu soo macsalaameeyay oo uu kasoo tagay isagoo usoo jeestay dhanka iyo qasriga. Malaala markii uu soo gaaray webigiina waxaa sugaya inuu doonta ku gudbo, weliba ninkaasna uu siiyo jawaabihii uu ka sugayay. Ninkii ayuu u wacay, wuxuu ku yiri kaalay, jawaabo ayaan ku hayaa, balse niyadda ayuu iska yiri haddaad siisid adiguu kugu bedelaya, adigana ma rabtid. Wuxuu ku yiri dhinaca kale igeey, anaa jawaabta ku siinaya. Ninkii isagoo faraxsan ayuu doonta soo saaray, kadibna dhinacii kale ayuu geeyay. Isagiina sidaas ayuu jawaabihii oo dhan farta uga saaray. Waxa uuna ku yiri waxaad u baahan tahay qofkaad ku bedelaysid inaad gacanta u gelisid ulahaan aad wadid oo doonta aad ku wadid, kadibna aad doonta uga boodid. Ninkiina wuxuu ku yiri aad ay u mahadsantahay, hadda kadibna doonta waan iska bedelayaa, waxaad i siisay fursad. Kadibna waxa uu soo gaaray ninkii kale ee waardiyaha ahaa. Kadib waardiyihii ayaa istaajiyay oo ku yiri ha soo gudbin adigoo aanan jawaabteydii isiinin, haddii aadan jawaab ii wadin waad iska noqonaysaa. Kadib wiilka ayaa ku yiri jawaabta ku hayaa, waxaana jira dooli ku hoos jira geedka hoostiisa, weliba xididada ka cunaya, dooligaas ka soo bixiya. Sidii ayaa la sameeyay. Isla markiiba geedka waxa uu bilaabay inuu caleemo bixiyo oo ugu dhalo tufaax dahab ah. Kadibna waxaa la soo siiyay 2 gaari dameer oo dahab ah oo lagu yiri waa abaalmarin maadaama aad geedkeenii inoo toosisay. Waxa uu soo wadaba dahabkiisii, waxa uu ka yimid ninkii labaad ee waardiyaha ahaa. Kadibna waxa uu yiri adigoo aanan jawaabta isiinin ma gelaysid qasriga, jawaabta ayaan kaa rabaa. Wiilkii ayaa ku yiri jawaabta waan ku hayaa, waxayna noqonaysaa in ceelka hoostiisa uu ku jiro bahal rake ah uuna ku dhagan yahay biyaha. Sidaas ayaa looga fujiyay bahalkii. Kadibna ceelkii waxuu soo saaray cabitaanadii kala duwanaa, weliba cabitaano aad u sii macaan badan oo aad u qurux badan. Haddana waxaa la soo siiyay 2 gaari kale oo ayagana dahab ah. Isagoo 4 gaari dameer oo dahab ah wata ayaa waxa uu soo galay qasrigii boqorka. Waxa uu u yimid boqorka isagoo gacanta ka saaray 3 tin ee dahabiga ah ee loo diray. Wuxuuna ku yiri waa kuwan, waa ku keenay 3 tin aad ii dirtay ee gabadhaada ma sii qabi karaa mise kale waad iga furanaysaa. Wuxuu ku yiri wiilkaygiiyow waad sii qabi kartaa, saacadan laga bilaabana waxaad tahay wiilkaan sodoga u ahay, waxaadna noqotay qof taajir ah, gabadhaydana kuuma diidi karo. Kadibna waxa uu siiyey gabadhiisii quruxda badnayd. Waxuuna ku yiri wiil yahow saacadan laga bilaabo waxaad ka tirsan tahay boqortooyadeeda, dhaxalkaygana adiga ayaa iska leh. Ilaa iyo halkan haddii aad soo gaartay, waxaan ku xasuusinayaa in haddii uusan subscribe uusan ku saarnayn, hadda aad saarato gambaleelkan aad furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada sheekada aan soo gelino halkan. Like-tana ha hilmaamina, like-ta waa ku dhimanaa, like-ta waa taageeranimo iyo goobaabin. Like haddii ay inoo saartid macnaheedu waxay tahay sheekadaada waan ka helay, aad ayay u macaan tahay, waxaan jeclahay dadka kale inay gaarto. Anigana waan kaaga mahadcelinayaa si aad u qurux badan maadaama aad like inoo saartay, subscribe-na inoo saartay, commentigana aad noogu soo qortid commentiyo qurux badan, weliba nagu dhiirigelinaya inaan sheekooyinka aan soo badino. Mahadsanidin.